بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaynu bilaabaynaa qaybtii saddexaad in sha allahu tacaalaa casharadeenii taxnaha ahaa ee ku saabsanaa qasaa'idka ma shay diina mase waa shay iska mucaamalo kala ah mase maxay yihiin waxaa inoo ku soo dameeyey oo aynu soo joognay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo caddaynaya markii ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadiisa ay joogto ilaahay in la baryo oo cidna aan loo sii marin ilaahay subxaanahu wa tacaala baryadiisa inaan cidna loo sii marin aan soo qaadanno aayadahan fii suurati zumar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fii kitaabihi alkariim qul afagayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun suubane waxaad tidhaahdaa ma waxaad i amraysaan ilaahay qayrkii inaan caabudo ayuha aljaahiluuna jaahiliintaaney kuwiina jaahiliinta ahow kelmadda dambe waa kelimad adag ayuha aljaahiluun marka waxaas wixii ku amra oo ilaahay qayrkii inaa caabudid kuu sheega ama kugu amra ama kugu sabaaliya ama kugu qalqaaliya ama arrintaa kuula yimaada ayuha aljaahiluuna sida qur-aanku u sheegay waa jaahiliin weliba misna sii jaahiliin ah ma u jeeda marka ilaahay qayrkii in la caabudo waxaa dhici kadha halkaa goortii la macnaynaayo la maraayo inay yidhahdaan war sanamaa laga hadlaayay sanamo iyo wax kacbada dhinacyareeda ool-oollaa oo sawirra abaa laga hadlaayay ee awliyaratan qabuuraha ku jidha iyo abootara yaratan iyo dadakan aan ka soo jeednoo na dhalay oo annaga asalka yagii hore ah war kuwaa looma jeedo ma u jeedaa sanamada waxa oo kacbada dhinacyareeda oollaa oo nebigu uu turqay markii dambe oo wada jejebiyey kulli mid waliba wuxuu lahaa sawir qof bani aadana badankooda sawirkaas marka waa qof hore oo dad hore ka soo jeeda waxa hadda aad maqashaan oo la yidhaahdo buudha oo ay qoladan buudiiska ah oo hindida iyo u badan dadkan shibl qaaratilhindi degan ay caabudaan waa qof sawirkiis qof baa sawiran si u kala xeelan gacmaha iyo madaxa iyo kala qalloocan yihiin khawaysiin baa xoogaa laaga dan leeyahay qofka maaragtay goortii saasaa laysu kala jeexayo laysu kala jiidaayo gacantii afka iyo indhaha la kala jeexayo saa laysu kala jeediyaa waa nooc cabsigelina wey meel ka mid ah marka jirkiisa ama intaa qofka suuraddiisa aba biyo lagaga furaa biyuhu waxay ka soo baxaan farjiga biyaha ka dhiiqaaya ayaa waxaa la darsadaa daasad galaas biyo ahoo meesha yaal baa loo dhigtaa waa la cabaa waa lagu qubaystaa waa barakays saas oo kale wey way dawaafaan way u yimaadaan hanti bay u keenaan waa la ilaaliyaa ciidan xarasaa saaran dawladdu dhaqaalay ka urursataa waxaas wey ma u jeedaa kan sidoo kaleeto meel baa dhisan meel baa daloosha meeshaasa lacag lagu ridaa lacagta nimanka la joogaa ka gurta isla markiiba ma u jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy walaqad uuxiya ilayka waxaa la waaxyooday adiga nebi maxamedow iyo wa ila aladiina min qablika kuwii adiga kaa horreeyey oo ambiyada ilaahay ahaa la in ashragta cibaarada haddaa cid ilaahay la wadaajisid layaxbadanna camaluka camalkaagu waa buraya walatakuunanna waxaadna ahaanaysaa min alkhaasiriin aayad ka adag oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wadnihiisa dhaqaajisay aayadaha ugu adag weeye haddaad shirki samaysid oo nebigu shirki ma samayn karaa maya idan waa weysha qowrac dibigu ha ku quustee nebiga calayhi salaam baa loo goodiyayaa oo ilaahay subxana wa taala la ballamaya oo ilaahay shirkiga ka fogow leeyahay oo wuxuu u caddaynayaa hadduu shirki sameeyo camalkiisu inuu buraayo walatakuunanna weliba camal buray lagaaga hari maaya waxaad noqonaysaa adiga nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu calayka walatakuunanna min alkhaasiriina kuwa khasaaray
oo intay shaqeeyeen waxoodii bureen oo baaba'een baad ahaanaysaa haddaa shirki samaysid. maxaan marka yeelaa rabbiyow? balillaaha facbud, ilaahay caabud, ilaahay cibaadada keligiisii wax allaale wixii adiga kaa imanaya oo addoon aa ku tahay ilaahay xaggiisa u jihay, ilaahay dartiisna ha ahaato. facbudu wa kun min ashaakiriin, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiyana ka mid ahow. wa kun min ashaakiriina, kuwa ilaahay mahadiya ka mid ahow. soo ma jeedid? sidaas iyo qaacidadaas baa innaga muslimiinta ah oo dhan ina haysata dhammaanteen. qaacidadaasaa inoo taal kulligeen inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudno, cibaadadana cidna aynaan la wadaajin. macnahaasu maaha awliyadii baan wuxuu dhinnay, ambiyadii baan wuxuu dhinnay, nebigii baan meel kaga dhacnay, aflagaadhaan samaynay, waa gafnay, diinta baan dhinac uga bayray, maaha macnu. nebiga calayhi salaatu wasalaam salawaatullaahi wasalaamu calayhi haddaynan raacin oo rumayn, diin inoo ansaxaysa iyo xarig inoo xirmaaya midna ma jiro. 5 waqti nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan lagu dhawaaqin adanka uusan ku jirin waxba inoo ansixi maayaan. atixiyaadka salawaadka nebiga hadduusan ku jirin waxba inoo ansixi maayaan salaadii. soo ma jeedid? magaciisa goorta la soo qaado qofkaan ku salliyin inuu qayliyo oo qaaq yidhaahdo qofku shardi maaha. inuu maaragtay afka isku qabsado gowsaha isdhaafsadana waxaa ka fiican inuu ku salliyo salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo la arko inuu akhriyaayo. haddii kaleeto waa bakhaylkii naarta allaha ku fogeeyo nebigu uu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi. nebiga intuu maqlay magaciisa aan ku salliyin oo u ducayn waa bakhiil, khayrna male qofkaas. ma ujeeda? marka goorta nebiga salawaatullah soo qaado salawaatullahi wasalaamu calayhi ku salli oo see ugu salliya allahuma salli calaa sayidina moxamed wacala ali moxamedin kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid, iyadoo gaaban oo khulaasaysan allahuma salli calaa sayidina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam, iyadana waa odhan kardha. soo ma jeedid? sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala fii suurati zuhruf waa kan ina leh fastamsik biladii uuxiya ilayka, waxaad qabsataa nebi maxamedow wixii laguu waxyooday. fiiri, nebiga waxbaa laga ilaalinayaa, waxbaa loo diidayaa, meel ka dhac iyo qalad iyo waxaan loo dirin iyo hawlaan maaragtay meesha online baa laga ilaalinaya. adigana sidoo kale nebiga amarka ku dhacaya muslimiinta oo dhan waa ku dhacaya. adigana sidoo kale iska ilaali wixii aan laguu dirin iyo hawl aan laguu dirsan iyo waxaan meesha joogin ha aadin, oo waxaad raacdaa wixii ilaahay subxana wa nebi maxamed uu ku soo dejiyey. ma ujeeda? innaka calaa siraadin mustaqiim. nebi maxamed haddaa qabsatay wixii laguu soo dejiyey calaa siraadin mustaqiimin baad ku sugan tahay. soo ma jeedid? sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirta, sida laguu amray u toosnow. waman taaba macaka, cidda ku raacday oo ilaahay u noqotay oo alla iyo rasuul rumaysay iyaguna dariiqa saa ha ugu toosnaadeen. walaa tadawow, xadgudub iyo qalad iyo shirki ha samaynina, meel ka dhac iyo gef aan laydin dirsan iska ilaaliya. innahu ilaahay bimaa tacmaluuna basiir, waxa aad samaynaysaan oo camal falaysaan basiirun waa arkaya. fii suurati huud aayadda 112. ma ujeedaa? dayib, waxay tahay marka su-aashu ma bannaan tahay ilaahay baryadiisii meel baa lagaga soo haray, ilaahay waa laynoo diray, nebigaa la canaantay, innaguna waa ka sii xag jiraayo waa ka sii fognahay. ma ujeedaa? ma bannaan tahay atawasul lillaahi lilmakhluuq? adaan su-aashaa ku weydiinaya. marka ha iga didin oo ha iga cararin oo ha boodin oo ha qaylin oo maaragtay isdeji oo jawaab oo qaab sharci ah oo aqoona ku jawaab oo qaab dadka maaragtay ay fahmi karaan oo shareecadii qawaacidda waafaqsan ku jawaab. ilaahay in loogu tawasulo qof bani aadana ma bannaan tahay? maxaa waaye hadalka macnihiisu? ilaahay subxaana wa tacala inaan baryaan rabaa, laakiin toos u baryi maayehe qola ka sokaysa, ama nebi ha noqoto ama malag ha noqoto ama awliye ha noqoto ama madax ha noqoto ama goob barakaysan ha noqoto ama qabuura ha noqoto, cid kale ilaahay ma ugu tawasuli karaayo ma odhan karaa ilaahow ciddaasaan kugu baryaayaay oo kugu tawasulayaay, ilaahow wax igu sii? ma bannaantay arrintaas? af buuxa iyo jawaabtoo buuxdoo dhammaystiran maya.
ee maxaan sameeyaa baahi baa ay haysahay ilaahay weydiiso baahidaada cidnana ilaahay ha u simarin subxaana wa tacaala oo arrintaasu meel ka dhac iyo gafsow nebiga iyo ambiyada ilaahay iyo awliyada iyo malaa'igta kuma aha maya kuma aha oo nebigu waa kan ku yidhi idaa sa'alta fas'alillaah buusan ku odhan xaa ku daba dhigay makhluuq soo maaha nebigu horta makhaaliq baa soo makhluuq maaha makhluuq marka ilaahay laguma baryi karo bilkulliyanba ilaahay laguma baryi karo noocuu doona ha noqdee ayib ayan kaana uu noqdo ayib oo arrintu waxay u ekaanaysaa haddii arrintaa lagu adkaysto oo la yidhaahdo ilaahay waa lagu baryi karaa awliyada iyo dadka wanaagsan oo noocaasa oo nebigu ugu horreeyo waxay noqonaysaa walilaahi almathalu alcalaa ilaahay toos looma abbaari karo oo ilaahay waa adag yahay oo ilaahay waa iska keen daboolo waa xirxiran yahay oo ilaahay toos uma baryi karo oo cibaaradiisa ma kari karo idan maadaama aanan ilaahay kari karin oo cibaaradiisii ay naga xihan tahay oo xaaladiyadu sidaa tahay oo aanan awoodi karin toos ilaahay inaan ugu bareero ilaahay waana cidu sii mara waaye saamiyaa marka waxay ka dhigantahay madaxweynaha haddaan wasiir loo marin oo waasda la helin oo wakhti ayan kaa qaadan oo xargal laysku xirxirin oo meelaha looga sii laaban ma ujeedaa ilaahay toos looma baryi karo saas oo kale ilaahay marka waxaad kala mid dhigtay khaaliqii inoo turaayey oo ina jeclaa oo inoo furaa oo albaabada inoo furay oo baryadiisa ina ku jiheeyey waxaad kala mid dhigtay makhluuq daalima oo albaabka soo xirtay oo halkaa jooga oo dadkii oo dhan muxuu ahaytoy iska daboolay oo ma ujeeda bal tusaalaha xun iyo meesha aad wax marisay iyo xaaladda saa ka dhigtay bilaahi calayka ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay arrinta in saas laga dhigo mayna ka mudan yahay ilaahay weyna jahay wuxuu yidhi addoommadaydow ibarya waan idinka ajiibayaay ma ujeedaa addoommadaydow ibarya waan idinka ajiibayaa baryada ilaahay waa kan le wacbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an in hore u soo marray marka waxaa waajiba sarfulcibaada cibaadada oo dhan noocay doonto ha noqoto ma barya ma siyaara ma salaadba ma ducaa ma muxuu waxbixinba dhammaan ilaahay wixii loogu dhowaanayo oo dhan in ilaahay subxaanahu wa tacaala la siiyo lilaahi waxda laa shariika lah ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo jihayo oo cidna aan loo sii marin saasaa loo baahan yahay qasiidaan qaadaya halkaanaan qamqam odhanaya waxa kanaan tumaya durbaan baan ku sii darayaa ee ujeeddadayduna waxaa weeye dadka awliyada inaan ammaano oo ilaahay ku baryo ma ujeedaa dhammaan qasiido oo dhan haddeeraan kuu sheegayaaye qasiido oo dhan badankeeda qabuuraha iyo howlahaas iyo meelaha ku tacalluqda oo dhan waxay ujeeddadeedu tahay in qofkan la ammaantiisa la meelayo la badiyo la wadwado la rogrogo la sheegsheego la yidhaahdo ilaahuw qofku noocaa weeyehe wax nagu sii ilaahu isagaan kugu baryaynaa saasay inoo iman doontaa waana inoo iman doonaan insha allahu tacaalaa isagoo saas la leeyahay ilaahow wax igu sii ilaahow ha igu qadin ilaahow wax igu sii ilaahow kaasaan kugu baryaaya ilaahow isagaan kugu su'aalanaya wakaas soo uma jeedid arrintaas marka arrin gefa oo ilaahay gef ku ah oo shareecada gef ku ah oo qalad ah oo aan munaasib ahayn oo fiicnayn oo shirkiya weeye ma ujeedaa waa meeshii nebigu lahaa aayadda qur-aanka qul afa kayrallaahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun ilaahay kayrkii inaan caabudo mayaad i amraysaan goortay yidhaahdeen sanamada sanad nala caabud annaguna ilaah sanad baan kula caabudaynaa soo uma jeedid halkaa marka waxaynu ku soo xiraynaa masaladaas cibaarada ilaahay baa leh qaabka loo samaynayana ilaahay baa dejiyey soo uma jeedid cid lala wadaajinaya oo la wadaagtana ma jidho hadday jidho aad samaysina ilaahay waa iskaga tagaa man ashraka macii fiihi hayrii taraktuhu wa shirka xadiiskii saxiixa ahaa qofkii cibaarada cid kale ila wadaajiya qani baan ka ahayoo waa iskaga tagaa soo uma jeedid ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaaradiisa cid in lala wadaajiyo waa mamnuuc waana qalad waana meel ka dhac waana gef waana diin la'aan waana ehlunaarnimo waana khadda iyo gef weeye soo uma jeedid
إن شاء الله تعالى مركا عشر كأني صدحات هلكا أيام كسو حرينا إلهي إذن كي دبان كسي ورندونا بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.